marka qofka waxaa sababa in isha ay ku dhacdo in isagiiba banaanku isu soo dhigo nicamka ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey inuu banaanka uu soo dhigo oo jirhkiisa halka ugu quruxda badneed inuu banaanka uu soo dhigo hanti wuxuu haystay inuu banaanka uu soo dhigo ubad wuxuu dhalay inuu banaanka uu soo dhigo yacni qof markiisii horeba adkaariyan baa u qaawanaa haddana marka dambena wax weeyaan gurigiisii soo duubaya amba arrimihiisii oo kale marka ilaha ee daawanaya iyo dadka daawanaya ayaa waxaa laga yaabaa qof markaa ishiisu ay kuloshahay oo xaasida oo markaa jinna la socda amba shaydaanna la socda in qofka markaa isha ay asiibto sidaa ishu ay ugu dhacdo oo markaa aan la garanaynba meel ay uga timid iyo meel ay tahay sidoo kale daruuri maaha isha inay meel kale ay kaaga timaado bal qofka isaga laftiisa ishu ay kaga dhici kartaa inuu naftiisa uu cajibiyo isaga qofku ishii baa isaga ku dhacday